muddo sanado ah kadib maanta waxaa mar kale dib loo furay garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho. garoonka Muqdisho ayaa ku dhawaad 16 sano lagu ciyaaray wax ciyaara waxaana uu ahaa saldhig ciidan oo ay isku bedelayeen hadba ciidamo kala duwan waxaana ugu dambeyntii la wareegtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo dayactirtay balse maanta ayay suurto gashay in dib u dhis kadib uu xariga ka jaro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kadib dib u dhis ballaaran oo lagu sameeyay garoonka. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa laaday kubadda dib loogu furayo garoonka oo sanado kadib martigeliyay ciyaaraha heerka koowaad ee Soomaaliya. madaxweynaha ayaa gool ka dhalin doona rigooro ayaa loo dhigi doona madaxweyne Farmaajo rigooro ayaa loo dhigi doona kubadda ayuu tuuri doona shabaqa ayuu gelin doona waa kan rigooro ayaa u taal waa kan Maxamed Farmaajo goolhayaha Maani ayaa galay laakiin waa uu dhaliyay madaxweynaha Soomaaliya waa uu dhaliyay kubadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhaliyay goolkii ugu horeysay ee kulanka iyo sidoo kalena goolkii ugu horeeyay ee garoonka Stadium. garoonka ayaa maanta martigeliyay ciyaaraha heerka koowaad ee Soomaaliya waxaana uu kulan ku dhex maray kooxda Horseed ee ciidamada xoogga dalka iyo kooxda dowladda hoose ee Muqdisho. kubad fiican uu sameeyay Graah Alagis Dishuuf laakiin banaanka ka bacday dib u dhiska ballaaran ee lagu sameeyay garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho ayaa waxa ay tahay guul u soo hoyatay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya oo ciyaaraha caalamiga ah home iyo away ku soo ciyaari jiray wadamo kale waxay tali jaanis u siilaysaa in home-kooda ay ku ciyaari doonaan Stadium Muqdisho. tuuladii ciyaaraha la dhahayay laakiin hadda waa magaaladii ciyaaraha Soomaaliya. garoonka Stadium Muqdisho waa qalbigii ummadda Soomaaliyeed 75% da'yarteenna ayaa indhaha ku haysa sidaas lamida 10 ilaa 15 mujtamaca Soomaaliyeed oo gudaha iyo dibadda bahweynta isboortiga ayaa indhaha ku haya. waxaa inoo muuqanaya muuqaalo qurux badan oo aad u ifaya hase yeeshee waxaynu isweydiineynaa sidee ku timid in garoonka Stadium Muqdisho oo ahaa goob muddo aan lagu ciyaarin saldhigyo ciidamo kala duwan ay isku soo bedeleen in haddana ay noqoto tuulada isboortiska ee Soomaaliya oo ay yeelato muuqaal sidan oo kale u qurux badan. haddii aan rabno inaan u hiilino dhallinyaradan soo idin lama aha in 2018 aan xoogga saarno kulligeen inaan isu tagno inaan u dhisno u furno garoonka Stadium Muqdisho dhammaan shacabka Soomaaliyeed. maanta waxaa muuqata astaan dowladnimo waxaan rabaa haddii aad sugayseen inay idiin timaado ajnabi idiin dhisa garoonkan inaad iska ilowdaan qof idiin dhisaysa male idinku diyaar muutiin inaad dhisataan